waxaa si rasmi ah ugu furmay maanta shirka wadatashiga madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya xarunta maamul goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana madaxdaasi ay ka wada xaajoonayeen qaabka doorashada Soomaaliya ay u dhici doonto waxaana khudbada ka jeediyay madaxda maamul goboleedka Puntland Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabelle ka furay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha dowladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada Galmudug xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya bulshada rayidka ah xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay xubnaha wafuudda la socota madaxda dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooyin sharaf weyn ayay inoo tahay aniga dowladda iyo shacabka Galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya walaalayaal doorasho heer federaal taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ah dowladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah sidaa darteed mudanayaal iyo marwooyin Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran dhammaystirka dastuurka dimuqraadiyeynta la dagaalanka argagixisada dhismaha ciidan qaran dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faanto ay noqotay in doorasho la qabto 4 sanaba mar dhammaantiin waa salaamantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo runtii aan uga mahadcelinaynaa dadaalka marxaladihii la soo maray qof walbana wuu la socdaa marxaladda maanta aan marayno waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahadnaqaynaa meesha dadka Soomaaliyeed maanta ay gaareen waxaa daliil u ah dhismihii iyo wakhtigii la soo baxshay iyo horumarkii dowladnimo ee dadka Soomaaliyeed ee muddada uu maalgelinayay waxaa daliil ugu filan shirka maanta aan fadhino maamuuska iyo sharafta xagga dowlad dhiska ugu dambeysay haddana dhismuhu daaraha iyo ma aha ee guryaha ee dhismuhu waa dad la dhisay baa jooga oo awood u yeeshay in ay maareeyaan howlaha guud ee qaranka dariskooda oo Puntland ay wada hadal iyo wada xaajood la galaan gogoshii qarankana ay dhigaan intaasba waxay muujinaysaa in ay yihiin dad u taagan inay qayb ka qaataan horumarka dalka ee maanta la tiigsanayo jeynayno inay ka soo baxaan wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku diirsadaan oo walwalka ka hayay mustaqbalka dhinaca doorashada ee laga gudbo kaftankaba aan ku daree meeshii federaalka lugta laga heen jiraa maanta fadhinaa marka waa horumar weyn oo la gaaray taasi waxay daliil u tahay dalka Soomaaliya 30 sano inuu gadaal ka tuuray annaguna waa aqbalnay waana ku taageeraynaa dowladda Galmudug iyo shacabka reer Galmudug sida quruxda badan oo soo dhaweynta leh oo Soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlayo maslaxadeeda doorashada markii la gaaro
uu wakhtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo Soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilkuu raba ha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay wakhtigaaba iska gaaban 4 sano dhamaanaysa waa sugaa marka nin kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar xildhibaanada ka socda labada aqal ee dawladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dawladda federaalka mas'uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonina ayna u ahayn ayna doonaynin iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaan ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay waddanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysyadana saaran waddanku inuu hore uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro labada gole ee labada heer ee federaalka marti sharafta kale bulshada rayidka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamay magaca iyo mansabka iyo brotokoolka oo halkan ku fadhiyo dastuurkaanu waa shay ka dhashay colaadii waddankaanu galay kala aaminbixii kala irdhowgii isku soo jiijiididiisii qof walba aniga waxaan laga tiro waxaan hala geliyo ilaa dhowr iyo 10 draft ayuu maray wixii laga badi waayay ayaa halkaas lagu qoray dadka u haysta inuu yahay dukumenti iska caadiya waa dhaxalka aan ku wada joogno ilmaheennuna ay ku wada joogi doonaan mar kasta oo ay taladu maxoogaa naga warwareerto halka aan ku taagsanaho waa federaalka waa meesha xuquuqda muwaadinku ay ku kaydsan tahay dastuurkaas inaan iimaansanno oon wanaagsanno ayay taladeennu ku jirtaa dan baan u mahadcelinaynaa ka soo qayb galay shirka waa noo furan yahay fayskan koobaad furitaankana intaas ayuu nagu egyahay waxaa socod doona shaqooyin goonigooniya iyo waxaa laga rajaynayaa in wax ku oo Soomaaliya wax tar u leh inay ka soo baxaan maalmaha soo socda wariya Cabdinaasir Maxamuud Xaaji Axmed Cabdinaasir Qujuufa freelance journalist dulqaad media photograph